PBS kulan weynaha Tianis oo 20 sano u dabaaldegaysa cusubnaanshaha iyo ka shaqaynta bariga Afrika ayaa ahayd maalin aad u farxad badan, maalin aad u rayn badan, dhalinyaro fara badan da' walba ay isu soo baxeen oo xubnaha ka ah Tianis inay ka qayb galaan kulanka PBS-ka ay yimid madaxweynaha Afrika sidoo kale qaybgalayaal kale oo sharaf badan ayaa yimid. waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro, waxaa lagu soo bandhigay hidiyo dhaqan, waxaa lagu soo bandhigay guulaha ay gaareen xubnaha reer Tianis. guul iyo wadajir, wada qabsi. waxaa ka hadalla ka soo jeediyey Lincoln oo ah chairmanka ama gudoomiyaha Tianis caalamka, sidoo kale Daahir Maxamuud iyo xubno ka ahaa shaqo-oonaro ama xarumaha maamulaya. halka waxaa lagu jiray KG Tianis. waxaa ahayd maalin aad u farxad badan, maalin aad u rayn badan, maalin guulaha iyo barwaaqada Tianis ay banaanka ceegeen. Tianis 23 waxay u dabaaldegtay 20 sano oo ay ka shaqaynaysay bariga Afrika. wadamada waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Uganda, Tanzania ilaa iyo Congo, Eritrea ayaa ku kulmay Afrika, bariga Afrika, dhalinyarteedii, dhexdhexaadkeedii iyo da'arweynteedii oo dabaaldegaya.